dowladaha dunidu dowlad waliba waxaa jirta gaar ahaan kuwa quudaha badan leh ajanda iyo siyaasada ay riixaan oo ay rabaan inay kaga guuleystaan kuwa kale oo ka soo horjeeda oo ay dowladaha kale ee dunida u bandhigaan si dowladdu ugu guuleysato miidaanka siyaasadda ee caalamiga ah uma baahna oo kaliya awood military ama mid dhaqaale oo ay ku khasbaan ama ku dirqiyaan cid ay rabaan inay taageeraan si ay u taageeraan laakiin sidoo kale waxaa jirta awoodda loo yaqaano awoodda dabacsan ama soft power waa maxay awoodda dabacsan maxay yihiin ilaha iyo meesha ay ka soo burqato awoodda dabacsan sidee bay dowladaha dunidu u abuuraan ama u aloosaan awoodda dabacsan oo ay ku saameeyaan dowladaha kale ee dunida بسم الله الرحمن الرحيم نبض دمانتين با كسو دوادا كلن كلا iyo taxanaheena buug wadaag kulankan buug aynu ku soo qaadanayna waxa la yiraahdaa soft power the means to success in world politics awoodda dabacsan tabaha lagu guuleysto siyaasadda dunida buugan waxa qoray qoraacana oo reer Mareykan isla markaana ku xeeler arrimaha siyaasadda oo magaciisa la yiraahdo Joseph buugan wuxuu qoray 2004 laakiin weedha soft power wuxuu adeegsaday baa la yiraahdaa oo lagu tiriyaa inuu isagu bilaabayba bartamihii 80-aadkii buugan wuxuu kaga warramayaa dunida inay jiraan saddex awoodood oo kala duwan awood military oo ah awood xooggan oo dawladuhu isticmaalaan si ay dawladaha kale culays u saaraan ama ay uga helaan go'aanada iyo rabitaankooda oo ah marka in military iyo hub iyo ciidan loo adeegsado sida marka wuxuu leeyahay tusaale ahaan Ciraaq Mareykanku 2003 iyo kale uu awood military ugu adeegsaday waxa kale oo jiri karta iyaduna oo uu leeyahay kamid awoodaha la isticmaalo adduunka awood dhaqaale oo ah in cunaqabateyn la saari karo dawladaha in marka qaar lacag u yeelo bangiyada adduunka laga xanibo in mucaawanooyin iyo lacag lagu taageeri jiray dawladahaas laga jaro hadii ay diidaan marka go'aano dawladaha ka awood badan ee wax weeyaan lacagta siinaya ay diidaan in cunaqabateyn lagu saaro laakiin labada awoodood ee horeba wuxuu leeyahay waa laba awoodood oo dirqin iyo khasab iyo culays dawladaha lagu saarayo oo aan ahayn buu leeyahay marar badan in la isticmaalo wuxuu leeyahay marka uu soo bandhigaya Joseph Nee in ay jirto awood saddexaad oo ka kharash yar kana saameyn badan mararka qaar aysan noqon batulaha 100% laakiin maxsuulka la rabo inta badan keeni karta waa awood marka ugu magac daray awoodda dabacsan haddaba maxay awoodda dabacsan waa in dawladaha kale ee adduunka adigoo aan khasbin ay go'aankaaga qaataan adigoo aan darqin awood dhaqaale iyo mid military adigoo aan u isticmaalin waa in go'aanada aad rabtay ay qaadan karaan taasina waxay ku iman kartaa buu leeyahay soo jiidasho ama inay ku qanacsan yihiin hab fikirkaaga dawladeed hab dhaqankaaga ummadeed iyo arrimaha aad wado inay aragtidaada wax weeyaan ay si kula arkaan software wuxuu leeyahay uu ka jaban yahay ka kale ee military-ga iyo midka dhaqaale labadaba marar badanna wax weeyaan uu ka effectivesan yahay ama uu ka saameyn badan yahay labada awoodood oo kale laakiin dawlado badan oo kuwa quudaha ama dunida ah way dayacaan buu leeyahay inay ka faa'iideystaan awoodda dabacsan iyo isticmaalkeeda haddaba awoodda dabacsan halkee bay ka soo baxdaa sidee bay bulsho u saameyn kartaa bulsho kale iyada oo aan khasbin sidee bay bulsho ugu qancin kartaa ama dawlad ugu qancin kartaa dawlado kale iyada oo aan khasbin oo awood military iyo mid dhaqaale adeegsan in sida ay rabaan ay wax u sameeyaan taasi waxa u baahan tahay buu leeyahay marka in ay jiraan shared values ama qiyam la wadaagayo oo dawladdaas rabta in la taageero ama la socdo iyo dawladaha kale ee ay ka rajeynayso inay la socdaan ama sida ay rabaan ay u dhaqmaan waa inay jirto buu leeyahay marka values iyo qiyam ay wadaagayaan haddii aanay jirin taasi wuxuu leeyahay suuragal ma noqon karto in aad dawlad kale attractive aad ku noqoto ama aad soo jiidato oo aad ku qanciso go'aankaaga si marka soo jiidashadaas u timaado oo qiyamka la wadaagaya u yimaado wuxuu leeyahay dawladda la rabo inay awoodan isticmaasho oo ah dawladaha inta badan waaweyn oo tusaale ahaan Mareykanka u soo qaadanaya wuxuu leeyahay waa in dhaqankoodu marka ugu horeysa uu noqdo dhaqan ay ku qancaan dawladaha kale ee dunida xulay marka dhaqanka dawladdaasi ayaa ah isha ugu weyn iyo source-ka ugu weyn ee uu ka soo baxay marka saameynta awoodda dawladda tusaale ahaan Mareykan wuxuu soo qaadanaya dhaqanada bulshahan ay leeyihiin ee dunida marar badan ay soft power-kooda ay ku gaarsiiyeen ama ay ku saameeyeen waxa kamid ah buu leeyahay marka xorriyatul qowlka waxa kamid ah dimuqraadiyadda waxa kamid ah xuquuqda aadamaha oo la ilaalinayo taasina wuxuu leeyahay waxay u baahan tahay marka hore dawladahaas inay noqdaan iyagu qaar ku sifooba dhaqankaas kadib marka ay awood u yeeshaan
in dhaqanka ay u waaridaan oo ay u raraan marka dawladaha kala dunida waxyaalaha kale oo kaga hadlayo buugga ku soo bandhigay waxa kamid ah wuxuu leeyahay mar haddii uu dhaqanku yahay isha ugu weyn awoodda dabacsan ay ka soo baxdo sidee bay tahay marka in loogu waarido ama ay dawladaha kale u gaari kartaa oo awoodda dabacsan ay dawladdu u isticmaali kartaa wuxuu soo bandhigay oo leeyahay tusaale ahaan waxyaalaha ugu weyn waxa kamid ah buu leeyahay wuxuu ugu yeedhay siyaasadda marka lagu wajahayo buu leeyahay arrimaha dibadda ولا سياسة الدولة مركا مريكان وكالة صلاة وسوق قادني أرمها دي بدأ يكون جايسها قيب وين بكل هذا هيبوليه مثلا من وين بكل هذا هاي مركا أود الدبعسن أي قصة من الدنيا ذاك القاب كأولاد رقم يسون دولة ذا كلا يصير أي مركا حقت وربحنا يوجد بين يسوع أي أولي اللي ترسو صلاة وحكورة يا بوش مركي وكهلا ويركي labadii kun iyo koodii Mareykan lagu soo qaaday ee uu ka hadlayay labada gole hortooda wuxuu leeyahay khudbadii uu soo jeediyay waxa laga yaabaa inay qancisay dad badan oo reer Mareykan ah oo macnaha caadifadii xilliga taagneed uu ka jawaabay laakiin buu leeyahay waxay hoos u dhigtay saameyntii arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka halkii loo arkay marka dawlad weyn oo lagu hiranayo oo macnaha mas'uuliyad weyn isa saarta oo adduunka sawirkaasi wuxuu leeyahay sanadihii u dambeeyay dhan uu ku jiray khudbadaasi inkastoo gudaha laga soo dhaway buu leeyahay laakiin waxay dhaawac culus u geysatay siyaasadda arrimaha dibadda iyo awoodii dabacsaneed ee dunida ay ku saameyn lahayd ay ku soo jeedan lahayd dawladaha kale marka wuxuu leeyahay siyaasadda arrimaha dibadda iyo qaabka loo wajahayo iyo sida loo communicate gareynayo arrinta looga hadlaya qayb weyn bay ku leedahay marka abuuridda iyo saameynta awoodda dabacsan wuxuu ka warramayaa leeyahay waxa qayb weyn ka qaata waxbarashada wuxuu leeyahay tusaale ahaan uu soo qaadanayaa uu soo xiganaya wasiirka Mareykanka Colin Powell oo leh waxa laga yaabaa adduunka saameynta aan ku yeelanayno ee ugu weyn inay noqoto ardayda dhulkeena wax ku baratay ee dalalkoodii ku noqda wuxuu leeyahay marka scholarshipska iyo tababarada iyo fursadaha waxbarasho ee dalalku ay bixiyaan inta badan waxay qayb ka yihiin buu leeyahay marka soft power ama awoodda dabacsan ee dalkaasi uu ku yeelanayo dadkan u yimi ee uu fursadaha waxbarasho ee deeqaha siiyay hadhow uu ku yeelan doono waayo dadkan way noqonayaan waxa laga yaabaa inay hogaamiyayaal noqdaan waxa laga yaabaa inay saameyn dadkoodii ku yeeshaan taasina marka waxay keenaysaa buu leeyahay qiyamkii iyo valueskii laga hadlayay ee uu lahaa waxa ay nuxur ama saldhig u yihiin saameynta awoodda dabacsan in iyagoo dhaqankii iyo valueskii Mareykan ay kala tageen ama dawladda kale ee wax siisay deeqaha waxbarasho inay marka dhulkoodii kula noqdaan taasina hadhow ay keento iyagoo aan loo isticmaalin awood dhaqaale ama mid military inay fuliyaan siyaasadaha dalalka ay wax ku soo barteen wuxuu ka warramaya leeyahay waxa iyaduna qayb weyn ka qaadata saameynta uu dal ku yeelan karo tusaale ahaan Mareykan oo kale wuxuu soo qaadanaya Hollywood iyo aflaamtaasi saameynta ay ku leeyihiin wuxuu leeyahay jaamacadda Harvard inta ay awoodda dabacsan ee Mareykan ku leedahay waxa ka badan inta marka aflaamta shirkadaasi ay soo saartay iyo Hollywood ay ku leeyihiin marka in dhaqankii iyo valueskii iyo arrimihii Mareykan u taagnaa inta la qurxiyo dunida laga iibiyo isla markaana ay keento marka in dunida kale ay ku soo jiitaan iyaduna qayb weyn ba ka qaataa buu leeyahay waxyaalaha kale ee xiisaha loo ka warramayo waxa kamid ah dalalka kale adduunka tusaale ahaan Yurub oo kale saameynta uu dabacsan adduunka ku leeyahay waxyaalaha keena wax ka hor marka sumcadda lafteeda iyo in adduunka lagaga arko cid sharaf iyo sumcad arrimaha qaar kale tusaale ahaan Norway buu leeyahay ma hadal weyn adduunka military male laakiin saameynteeda dabacsan adduunka lagu yaqaan waxa kamid ah inay tahay dal weyn oo marka ka shaqeeya nabadeynta iyo inay dhex gasho ciidaha is haya adduunka oo khilaafaadka la soo xalliyo oo kamid ah buu leeyahay marka iyada lafteeda siyaabaha awoodaha dabacsan ay u dhashaan ee dunida loogu yeesho wuxuu ka warramayaa uu leeyahay dawladaha kaliya awood dabacsan ma keeni karaan laakiin waxa iyaguna qayb weyn ka qaadan kara shirkadaha tusaale ahaan buu leeyahay Mareykan inta shirkadda Microsoft oo kale ay u keentay saameyn adduunka dabacsan inuu ku yeesho oo go'aanada adduunka uu saameeyo Mareykan ayaa ka badan buu leeyahay inta laga yaabo hay'ado dawli ah oo la garanayo in hay'ado dawli Mareykan yihiin inay ku keenaan waxyaalaha kale oo aadka uga warramaya waxa kamid ah qaaraanka ama mucaawanooyinka ay dawladuhu bixiyaan iyo sida ay u taageeraan dawladaha kale marka baahan iyada lafteeda inay tahay meelaha soft power ku ka dhasho ama dawlad kale awood saameyneed ay ugu yeelan karto buuggan runtii waa buug aad u xiiso badan oo ka warramaya marka mowduuc inta badan hadda dunida xiiso badan kale cidii akhri karta aan kula talin lahaa inay akhrido buugga kan ku xiga intaan ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa
buug wadaag oo adduun wadaag. hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiba. soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.